Waxaan jeclahay inaan arko idinkoo boosteejooyin kala duwan taagtaagan oo sugaya basas bilaash ah oo midba nambar gaar ah ku qoran tahay. Tusaale baska lambar 24 ee ka baxa Soobe ilaa isgoyska Beexani. Buundooyin casri ah oo kala fududaynaya isku socodka gaadiidka baad sii mari lahaydeen. Magaalada bilicdeeda iyo darjiimooyinka quruxda badan baad daaqadaha ka sii daawan lahaydeen. In yar kadib buu darawalka joojin lahaa boosteejo laga raaca basaska. Hooyo canug yar uu la socdo baa weydiin lahayd inuu kursi ka bannaan yahay. Wuxuu ku jawaabi lahaa, hal boos keliya ayaa bannaan ee iga raali noqo, baska xiga soo raac. Waxay isku dayi lahayd inay ku qanciso inay dhabta saarata canugeeda, markaas buu si deggan u fahansiin lahaa isagoo leh, walaashay sharciga ma ogola oo ganaax baa igu dhici kara. Cabaar kadib qof daaqadda dhinaceeda fadhiyay baa wax ka yaabiyay arki lahaa. Wuxuu la fajacay ra'iisul wasaarihii dhammaa ee dalka oo gaari la saaran carruurtiisa uu iskuul ka soo kaxeeyay, safka gaadiidkana si quman ugu jira oo sugaya inta leerku cagaar ka noqonayo, jidkana furmi doono. Wixii arrimahan fududeeya buu oday waayeel ah oo waayajoog ahaa oo ag fadhiyay ka waraysan lahaa. Wuxuu u sheegi lahaa odaygii in eelaboorka, xarumaha dowladda iyo suuqyada waaweyn intaba magaalada meel ka durugsan loo raray oo sidaasi looga raystay ciriirigii badnaa, dhaqaalihii waddankana sare uu u kacay. Wuxuu ninkaas odayga ah soo xasuustay sanadkii 2020, micnaha sanadkan aan hadda ku jirno, daruufta ka muuqatay bulshada iyo sida looga samata baxay oo horumar iyo dowlad wanaag loo tiigsaday. Alle dalka ha inoo hagaajiyo. Sawirkaas dhanka bidix idinkaga muuqda waa midkii igu kalifay ama igu qasbay inaan sheekadan qoro oo aan bannaanka keeno dhacdooyinkaas quruxda badan ee qalbigayga ka dhex shanqarayay. Qof kastoo inaga mid ah, Rabbi ha gaarsiiyo inuu arko dalka oo nabad, kala dambeyn, sinaan iyo cadaalad la isku dhaqayo, sida maanta uu yahayna ka sii bilic weyn. Asxaab idinka mid ah baa aragtiyo ka dhiibteen qaabka lagu gaari karo dowladnimadaas quruxda badan. Haddaba aan idinla wadaaga qaar ka mid ah fikradahooda. Ali Haydar waxa uu leeyahay, waa riyo aad u qurux badan laakiin u baahan dad iswaafaqsan oo hal dhinac inay u socdaan isku dhaarsaday. Midab, qabiil iyo deegaan midna uusan kala kaxayn karin, hadafkooduna mid yahay, wax walbana uu uga horeeyo. Ayaan Cabdulaahi waxay soo qortay, waa riyo qurux badan waana la gaari doonaa insha Allah, laakiin intaan isdhahayno dowladdu may wax qabato, heer ma gaarayno, dal walba dhalintiisa dhisto. Hadday dhalinyaradu isxilqaami lahayd, sidan dalkeena ma noqdeen, horumara gaari lahayn. Xasan Maxamed Ducaysana wuxuu yiri, waa riyo wanaagsan laakiin waxaa ka sii wacan in ficilkii la sameeyo oo dadku ay isku tashi sameeyaan, sababtoo ah dal waliba dadkiisa ayaa dhista oo casri ka dhiga. Kordahab iyadana waxay leedahay, Ilaahay hana siiya xasiloonidaas iyo amnigaas. Ummad israacdo, isjecel oo isku naxariisata Allah naga dhigo. Aamiin insha Allah. Haddaba adigana aragtidaada nala wadaag, goorma ayay dadku gaari karaan dhacdooyinkaas quruxda badan ee aan ka soo sheekaynay? Asxaabta kala gaarsiiya oo bulshada rajo geliya. Muuqaalkan waxaa laga yaabaa inuu dad badan wax taro, ee inoo sheer gareeya.